xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa munaasabad soo dhaweyn u qabtay taageerayaal tiro badan oo ay hogaaminayso gudoomiyaha ururka bahweynta nabadda Carfi Jaamac waxaana munaasabadaasi lagu soo dhaweynayo ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga wadani oo sheegay inay ku soo dhaweynayaan xisbiga wadani nahay maanta waxay noo tahay muxuu farxad weyn waxaan ku soo dhaweynaynaa xisbiga qofkii gobolka ugu cuslaa qofkii gobolka ugu taariikhda badnaa qofkii gobolka ugu muxuu ahaa miisaanka islaamana soo dhaweynaa anaga farxad gaaray noo tahay hadaan nahay xisbiga iyo muxuu ahaa iyo xisbiga heer qaran iyo heer gobol badana farxad gaaray noo tahay waxaanu maanta aaminsanahay inaanu guuleysanay oo gobolkaanu ku guuleysanay taageeradii gobolka inaanu ku guuleysanay ba maanta noo muuqata waana soo dhaweynayaa dhammaan wixii xisbiga hore u joogay iyo waxa soo galay iyo wixii kasoo digaroonaya waan soo dhaweynayaa waan xisbi aan laga lahayn waxaan leenahay xisbigiina ku soo dhawaada hadalkuna waa si kooban yahay hadal badan looma baana waxaana u raacay isbeddeldoonnimo iyo wax la yiraahdo inuu raadiyo iyo hanka haddaan laga helin mujtamacina ama bahweynteena laga helin oo inagu aynaan garab bahas qabsan oo ka wax keeni karaya aynaan keenin inagu marka hore isbeddelkeena doonayno heli mayno gudoomiyaha bahweynta nabadda Carfi Jaamac ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay waxaan idin leeyahay war ma dadka kiradii iska bixin kari waayay maanta gobolka sool ka raadinaya kulmiyay inaynu ka dhoofno miyana gaari inaynu ka lacnahay waa ka soo diray anigaan baqayn oon cidna u xidhnayn oo cid ii yeedhanin guddidii nabadda bahweynta iyo kii degmada iyo taageerayaashoodii iyo gobolkiiba iyo aqalka calanka yaraga hortaagay halla iga biyo aqalka calanka ilaa sabtidan sugaya ilaa sabtida waxaad ku dareertaana oo u shaqaysan oo la socotaan oo hadaaqinu yahay waa wadani saldhigii u dambeeyay dhufayska u dambeeyay inaanu ka qabsanay xisbiga aanu loolanka kula jiro yaanu idiin sheegaynaa haddaanu nahay xisbiga wadani maanta sharaf weyn bay noo tahay qiimo weyn bay noo tahay xisbiga wadani inay ku soo biirto Carfi Jaamac Ali gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Sool ahna gudoomiyihii ururka nabadda bahweynta nabadda gobolka Sool oo ah tiirarka ugu waaweyn la saanood lagu garto xisbiga wadani waa xisbi aan la kala lahayn waa xisbi aan la kala xigsan waa xisbi dad siyaasiyiin hormuud ka yihiin labaad baqalkan uga diray xisbiga kulmiye maanta dad haysan weydeen hooyadii gobolka Sool ama hooyadii degmada Laascaanood ma Carfi waxaan u maleynayaa waxba gobolka inaysan idiin oolin wax codana aydan ka sugaynin maantana ay cadahay inuu codka iyo halka la isu raacay iyo gobolada Soomaaliland oo dhan ay tahay xisbiga wadani Carfi oo dawlad ka soo horjeesatana lama arag laakiin maanta waxaynu ogaanay inuu xisbiga wadani dawladii yahay Carfi ku soo biirtay taana way noo cadaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhankiisa sheegay in xisbiga wadani yahay mid loo siman yahay waxaanu bulshada ugu baaqay in la taageero xisbigaasi Carfi lagama tilmaami karo Carfi qiyaasaheeda iyo miisaanka ay gobolka ku leedahay iyada iyo bahdeeda wax lagu soo koobi karo maaha oo aynu ka sheekayn karno xisbigu wuu qiimeyn doonaa wuuna xisaabaha kulmiye kala tagayna in loo tixgeliyo rajaynaya insha Allah bidnaahi kariim in ay ku soo biireen xisbiga wadani una codayn doonaan Mawlid Ali Star TV Laascaanood